15 Abriil ayaa madaxweynaha qaranka Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi uu qorsheeyay maalinta dhirbeerista Soomaaliland waxaana maanta hay'adda WHO ka duulaysa ahmiyadda maalintaas u leedahay deegaanada Soomaaliland ay kungeed ku wareejisay wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee gobolka Awdal. Dhirtani oo loogu talagalay ka hortagga xaalufka dhirta iyo badqabka deegaanka taasi oo loo qaybinayo deegaanada hoos yimaada gobolka Awdal. Waxaana ugu horreyn halkaas ka hadlay madaxa hay'adda WHO ee gobolka Awdal Cabdiqaadir Cali Bede isagoona ka waramay dhirtani ay ku wareejiyeen wasaaradda deegaanka. maanta oo ah maalintii qaranka Soomaaliland uu waasteeyay maalinta dhirbeerista ka hay'ad ahaan waxa maanta aan ku wareejinaynaa wasaaradda deegaanka ee gobolka Awdal dhir gaadhaysa ilaa kungeed taasoo aan ugu talagalnay wasaaraddu in ay bulshada u sii qaybiso. hay'adda laftigeega waxay ka beeri doontaa 700 oo geed deegaanka dhuxunka ee maartay ka tirsan degmada Dila. run ahaantii waxaan ognahay dhirtu in ay nolosheena qayb weyn ka qaadato. maanta wuxuu noqonayaa halku dhigeenu dhirtu waa dhaxalka ubadkeena aynu dhowrno. sidoo kale waxa halkaas ka hadlay suduwaha wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee gobolka Awdal Daahir Axmed Qolambi isagoona uga mahad celiyay dhirtani hay'adda WHO sidoo kalena sheegay inay deegaanada hoos yimaada gobolka Awdal u qaybin doonaan. waxaanu maanta hay'adda Jarmal Agro Action WHO iyadoo kamid ahayd hay'adda aad noola shaqeyso gobolka ka qayb qaata ilaalinta deegaanka waxay diyaar galaysay dhinaceega ka diyaar galaysay dhirtii sanadka aan qaybin lahayn in gobolka Awdal u qaybin lahayn waananu ka mahad celinaynaa dhirtaa ay maanta nasiiyeen ee deegaanka ay ku ilaalinayaan. sidoo kale hay'adda WHO ayaa si rasmi ah dhirbeeris uga fulisay deegaanka dhuxunka ee degmada Dil ee ka tirsan gobolka Awdal waxaana halkaas ka hadlay Cabdisalaan Xamid Cabdi Garka oo ka socday hay'adda WHO isagoona ka waramay waxyaabihii kala duwan ay ka hirgeliyeen deegaankani. deegaanka dhuxunka waxaan ka shaqeynay muddo 2 sano ah waxyaabahan ka qabanay waxa kamid ah kaabad qarax Stone Bank kuwan la yiraahdo oo buurta sinkeeda dhagaxan ka sameynay. imika maanta waxaan ka shaqeynay inaan ku sameyno dhir aan ku beerno maadaama ay tahay maalintii dhirbeerista Soomaaliland. inta kadib suduwaha wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee gobolka Awdal ayaa ku wareejiyay gudoomiyaha degmada Xeego 500 oo geed oo ugu tala galeen in lagaga hortago xaalufinta dhirta ee deegaanadaasi. waxaana halkaas ka hadlay isla markaana uga mahad celiyay wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee gobolka Awdal gudoomiyaha degmada Xeego Khadar waxaana uu sheegay inay tahay mid loo baahnaa. Cabdisalaan Saaha warbaahinta qaranka Soomaaliland magaalada Boorama.